daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkani taxanaha ahaa ee barashada kombiyuutarka. waxaad horey iga barateen cashiro kombiyuutar ah inaan idiin soo gudbiyo, laakiin caawi waxaan idiin soo gudbi doonaa insha Allah cashir ku saabsan telefoonada casriga ee aad wadataan ee loo yaqaano Android-ka. sidaan ognahay telefoonada Android-ka casriga ah iyo kombiyuutaradu waa isku one family, waxay ka wada tirsan yihiin technology-ga cusub. haddaba waxaan caawa ka hadli doonaa waxaa loo yaqaan APK. intaana ka hadlin waxaa muhiim ah inaan isfahansiino waa maxay Android waa operating systemka ugu caansan ee telefoonada casriga dunida yaala inta ugu badan maanta ay ku shaqeeyaan. aqoontayda marka laga reebo Apple oo iska leh telefoonada iPhone-ka iyo iPad-ka iyo BlackBerry, sidoo kale Microsoft Windows oo iska leh iyaduna telefoonada loo yaqaano Lumia ama Windows Phone-ka. haddaba waxaan ka hadli doonaa caaway waxaa loo yaqaan APK. qof aan aqoon haddii aan ka siiyo waxa yaro sharaxaad ah, dabcan waa kan. Android Application Package (APK) is the package file format used by the Android operating system for distribution and installation for mobile apps and middleware. waxaa la dhahay Android Application Packagesku ama APK waa package-ka file formatka ama fileka adiga markaas aad doonaysid inaad telefoonka ku duubtid isla markaan loo isticmaalo in telefoonada lagu faafiyo ama lagu duubo mobile apps ama barnaamijyada mobilka ku shaqeeyo. sidoo kale waxaa la APK files are analogous. APK filesku wuxuu shabahaa to the other software packages such as APPX. software packages kale shabahaa sida APPX oo isticmaasho Microsoft Windows ama Debian packages oo isticmaasho Debian based operating systemnada lagu base gareeyay Debian-ka. haddaba Debian-ku waa maxay? Debian-ku waxaa hoos imaan kara Ubuntu-ha, Linux-ka iyo Kali Linux. waxaan filayaa inaad fahan yaro kooban aad ka qaadatay APK waxaa loo yaqaano. APK-gu waa telefoonada marka la joogo fileka ugu dambeeya, extension-ka ugu dambeeya, halka kombiyuutarada aad ku arki jirteen fileka markaad soo degsatid ama qofka aad kasoo qaatid software inuu meesha ugu dambeysay extension-ka uu noqdo exe ama executable, laakiin telefoonada way ka qaab duwan yihiin oo extension-ka ugu dambeeya waa APK lagana soo gaabiyay Android Application Packages. waxaan filayaa daawada inay intaas kugu filan tahay fahan yaroo kooban. daawadayaal waxaan caawa ka hadli doonaa qaabka ugu fudud ee loola soo dego Android applicationska ama APK fileska. waxaa jirta dariiqo caan ah oo dadka dhan ay wada yaqaanaan oo ah in aad Play Store gashid then aad kala soo degtid, laakiin taas faa'iido darrada ay leedahay waxa waaye haddii aad la soo degtid inaadan dib u isticmaali karin, oo haddii telefoonka aad restore marisid ama filekaas aad uninstall tirahdid inaadan dib u arkin oo ay kugu khasbayso inaad mar kale la soo degtid. haddaba anigu dariiqooyinka caawa aan wado waa laba dariiqo oo aad u fudud isla markaana kuu suurtagelinaya haddii aad la soo degtid oo aad application-kii aad la soo degtay uninstall aad tirahdid ama telefoonka aad restore marisid inaad dib u isticmaali kartid distributable ama aad saaxiibada la wadaagi kartid. haddaba daawadayaal waan tijaabi doonaa labada dariiqo si waafi ah ama isku mid ah, iyadoo aan tusaale dheer u baahnayn. dabcan waxaad u jeedaan waa telefoonkayga gacanka oo aan ku tijaabin doona insha Allah, isagana ay ku jirto Android-ka waa Samsung, saa darteed isaga ayaan ku tijaabin doonaa insha Allah. haddaba labada dariiqo waa maxay? dariiqada koobaad waa online APK downloader, inaad gashid webkan aan ku siiyay linkigiisa apkledger.com then aad besti ku tirahdid sida aad daawan doontid daawade. okay, waxaa ka horeysa inta aadan webka gelin fileka aad degsan lahayd inuu ku magacaabaya isla markaana aad haysatid linkigiisa. tusaale ahaan aniga waxaan raadin doonaa APK extractor. oo soo kacay Play Store ayuu ku jiraa, then waad geli waad sugaya intuu kaaga soo kacayo. okay, wuu soo kacay. qodob kale oo asna muhiima ayaa jira inaad fiirisid aaraada dadka ka horeeya ay reebeen, isticmaalayaasha ka horeeya dabcan ay reebeen, si aad u ogaatid waxa aad adeegsanaysid quality-ga uu leeyahay. taasna waa ra'yi kale. then waxaad koobiyeynaysaa
id-ga fileka aad degsanaysid oo ah com.ext.ui at iyo equal inta udhaxaysa ayaad copysanaysaa. copy then imo inta package name paste kadib waxaa dhahdaa generate download link waad sugaya intuu kaaga soo baxayo. kadib waa soo kacay package name waa com.x.ui app name waa apk extractor file size waa 1.4 MB QR code kana hadaad doontid waa marsin kartaa. okay laakiin anagu ma baahnin. kadib waxaan leenahay proceed to download page kusii soco download page-ka waad sugaya intuu kaaga soo kacayo. oo ujeedaan apk extractor is now downloading hadda ayuu soo degay. daawadayaal sidaad ujeedaan waxa uu leeyahay waxa uu gudbinayaa meeshaan dhigan lahaa kadib desktop iska dhigo save dheh طبعا هو shaqeynaya oo soo kacay. okay hadaba inuu shaqeynayo waxaan soo dejinay aan ku tijaabino telefoonka ku duubno sida aad u jeedaan. طبعا markii aan ku duubno kadib uu shaqeyn doonaa insha Allah. okay hadaba telefoonka soo kicino open folder kadib sida aad u jeedaan wuxuu doonayaa install installation-ka ayuu wadaa. waad sugaysaa intuu ka dhameynayo kadib waa uu dhameeyay dhan. daawadayaal waxaan kasoo hadalnay dariiqadii koobaad oo ahayd online apk downloader. haddaba dariiqada labaad aan geli doono waa inaad isticmaashid software-ka la dhaho ama application-ka la dhaho apk extractor. sida magaca ka muuqata apk extractor wuxuu ku sameyn doonaa applicationada kuugu duuban telefoonkaaga ee aad kala soo degtay play store-ka inuu kugu kala furfuro isla markaana uu kaaga dhigo mid dib loo isticmaali karo ama dadka saaxiibada ah aad la wadaagi kartid. waxaad arki doontaa daawade waxaan ka sheekeyn doona marka aad daawatid. tusaale ahaan aan galno telefoonka software-kii ama application-ka haddaan soo dejino waa kana apk extractor. loading application waad sugaysaa intuu ka dhameynayo. okay hal mid ayaan ku tijaabinaynaa. tusaale ahaan anigu feedmate waxaan kala soo degay play store-ka isla markaana haddii aan hadda uninstall laho dib uma heli karo waayo extraction kuma ana samayn online kulma ana soo degin dariiqa kale kulma soo degin dabcan. laakiin play store-ka ayaan kasoo dejiyay wixii play store-ka laga dejiyana dabeecad ahaan way kugu duumayaan kaliya laakiin dib uma isticmaali kartid. si aan dib ugu isticmaalo waxaan u baahanahay apk extractor software-ka loona hadda hor yaala isla markaana inoo furan inaad kaliya ku dhifatid asaga extracted to path storage. okay extraction-ki haddaba wuu noo sameeyey. xagee ka heli karnaa extraction-ka uu noo sameeyey? ku laabo gal memory-ga okay extracted apps ama programyadii ama appskii la kala furfuray ku dhifo akana feedmate. waxaa u dambeeya feedmate.apk extension-ka u dambeeya waa apk dabcan. just hadda qof waad la wadaagi kartaa share waad koobiyeysan kartaa ama dib waad ugu duubi kartaa. tusaale ahaan haddii aan ku dhifano hadda muxuu leeyahay install ayuu leeyahay install just you can install it waad ku duubi kartaa. daawadayaal waxaan filayaa inaad ka hesheen videogan kooban ee ka hadlaya qaabka apps-ka telefoonada android-ka ama telefoonada casriga ah dib lagu isticmaali karo ama loo soo degi karo. laba dariiqo ayaan kasoo hadalnay oo aan ahayn play store-ka taas caanka ah. dariiqada koobaad oo aan kasoo hadalnay waa online apk downloader. dariiqada labaadna waa inaad isticmaasho software-ka la dhaho apk extractor. daawade wixii talo iyo tusaale ah ama su-aalaha igu reeb Muhammad Nadara
ايميل كان نذارة 2010@gmail.com اما facebook.com/محمود.نذارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.